بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومال العيدة كل مالتي لباد بان كجرنا عيدة عيد الفطر أنا هو مالتي لباد بالشدة قيبة كمدنا هو مالتي كل صدحات بيوتهاي caawa waxaan halkan u soo fariistay oo doonaya inaan idin la wadaago laba qodob. qodobka koowaad waxa weeyaan waa salaan, waa hambalyo, waa tahniyad aan u dirayo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. qodobka labaad waxa uu ku saabsan yahay fariintii ama aragtidii ayna la wadaageen qayb ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland uguna magac dareen baaq shacab inaan wax ka idhaahdo oo fikirkayga ku darsado ayaan caawa insha Allah bismillahi kariim isku day intii Ilaahay qadaro. marka labada qodob ayaan doonayaa inaan caawa idin la wadaago. marka hore aan u galo qodobka koowaad, waxaynu soo dhamaysanay bishii barakeysnayd Ramadaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkeeda iyo wanaaggeeda hayna siiyo. waxay noo bilatay ciid al-fitr oo ka mid ah maalmaha islaamka, maalmaha ugu qaalisan. sidaa daraaddeed waxaan tahniyad iyo salaan halkan uga dirayaa dhammaan shacabweynaha Somaliland qaybihiisa kala duwan, hadday tahay dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland, haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ururada bulshada, qurba joogta reer Somaliland, dhinaca siyaasadda hambalyo iyo salaan waxaan halkan uga marinayaa xisbiyada mucaaradka ugu horeeyo xisbiga wadani, bahweynta reer wadani, taageerayaasha xisbiga, xisbiga mucaaradka ah ee cadaaladda iyo daryeelka ucid taageerayaashiisa. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid alcaafiya, kulli caam wa antum bikhayr. waxa kale oon salaan iyo tahniyad u gudbinayaa xukuumadda, xisbigeeda, golayaasha qaranka, ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qaybahooda kala duwan, guud ahaan qurba joogta reer Somaliland. waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan, sanad wanaagsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa guul ayaan u rajaynayaa shacabka, dowladnimo wanaagsan baan u rajaynayaa, midnimaan u rajaynayaa. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala in xanuunada iyo dhibaatooyinka hadda lagu jiro in ilaahay si yaroo fudud uu dhaafiyo. rabadaano fara badan iyo ciido fara badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaadhsiiyo, bashbash iyo barwaaqana ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu gaadhsiiyo. salaanta iyo tahniyadda waxaan u dirayaa shacabweynaha reer Somaliland. waxaan kale oo tahniyad iyo salaan halkan aan uga gudbinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, meel kastoo ay ku nooshahay. iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan, sanad wanaagsan. waxaan idiin rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaagga idin waafajiyo, rabadaano fara badan iyo ciido fara badanna idin gaadhsiiyo. xanuunadan iyo dhibaatooyinkan jirana ilaahay si yaroo fudud idinku dhaafiyo. guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan baan leeyahay. ummadda muslimka ah dhammaan ciid wanaagsan baan leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala shucuubta muslimka iyo dowladahoodaba waxaan u rajaynayaa in ilaahay xaqa iyo wanaagga waafajiyo. dowladahooda iyo dadkoodana in ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka
iyo wanaagga iyo diinteenna islaamka ee wanaagsan ilaahay ku sugo ayaan iyagana ugu ducaynayaa. qodobkaa markaan dhaafo waa qodobkaygii koowaad. qodobka labaad waxa uu ku saabsan yahay sidaan horeba u soo sheegay fariintii ama doodii ama aragtidii ay inala wadaageen qayb ka mida dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan ee aqoon-yahanka ah miidiyada inoo soo mariyeen ee ay ugu magac dareen baaq shacab ayaan doonayaa aniguna wixii iiga baxay inaan qodob iyo laba wax ka idhaahdo insha allah bismillahi kariim. intaanan u gelin qodobkaa marka hore waxaan soo dhoweynayaa oo aan u arkaa wax saxa in dadkeennu ay noqdaan dad awood u leh inay doodi karaan, inay noqdaan dad awood u leh inay taxliilin karaan arrimaha had iyo jeer saamaynta ku leh nolosha bulshadeenna, dowladnimadeenna, bulshadeenna guud ahaan, ganacsigeenna, shaqo abuurka, xidhiidhkeenna caalamiga ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda, wax kasta bulshadeennu inay noqoto awood ay u yeelato doodaha iyo fikirka inay isweydaarsadaan, exchange of idea, oo dhallinyaradeennu ay doodo waa wax saxa baan u arkaa, waa hannaan saxa, waa dee waa waxyaalaha caalamka markaad eegto bulshooyinka caalamku dee dadkooda ay ku saxaan, ku horumariyaan, afkaartooda ku soo bandhigaan, dowladahooda ku saxaan, wixii ka qaldan magaranaysa ay ku saxaan, wixii u wanaagsan ku adkeeyaan ayay dooduhu ka mid yihiin. marka waan soo dhoweynayaa dood kasta oo taabanaysa issueska waaweyn ee maanta waddankeenna ka jira ee ka qaldan, aad baan u soo dhowey, ama baaq shacab ha noqoto ama doodo kaleba ha noqdaan, in la sii wadana waan dhiirigelinayaa. qodobkaa markaan intaa ku dhaafo, qodobka labaad waxaan sheegayaa ee hordhaca ah, bini aadamku kala duwanaanshaha bini aadamku waa nature. fikirka mar hadday dooday timaado waxaa dhinac taalla in la kala duwanaan karo doodda. dadka had iyo jeer ku takhasusay cilmiga barashada bini aadamka iyo kala duwanaanshihiisa waxay inoo sheegaan inaan la heli karin laba qof oo isku mid a, isku sar go-an 100%, iyagoo eegaya waxaanay u bixiyeen maxay personality traits ama sifooyinka qof waliba uu leeyahay, qofku dooqa, waxa weeyaan emotionka, habka iyo awoodda uu leeyahay qofku, habka uu wax u taxliilinayo, reactionka, muuqa, yacni waxyaalahaasoo dhan iyagoo eegaya waxay dhahaan bini aadamku iyo wax kale oo fara badan wuu ku kala duwan yahay. laakiin waxaa jirta bay yidhaahdaan bini aadamku inuu maxay meelaha qaar iska shabihi karo oo isu ekaan karo, similarity ama aragtida ama fikirka ama dabeecadda ama waxa weeyaan emotionka iyo reactionska wixii la socdo, waxyaalaha bini aadamku inuu isu ekaan karo habka wax u cabirayo ayay sheegaan. marka waxaan ka hadlayaa in bini aadamku uu kala duwanaadaa waa dabiici, waa arrin ilaahay subxaana watacaala, waa xikmad rabbaaniya. taana kala duwanaanshaha in la aqbalo oo waxa weeyaan ay u baahan tahay in tixgelin iyo mar walba wixii laga midaysan yahay ee la iskaga mid yahay in priority-ga la siiyo, waxa lagu kala duwan yahayna hoosta la dhigo. waa siyaabaha dee bulshada adduunka ku wada socotay ka mid tahay, markaana in la ogaado. waayahay, waxaan u gudbayaa markaa baaq shacab. baaq shacab markaad wax taageeraysa baa la idhaahdaa, ama aada naqdiyayso, waxa shardi ah issuegaa laga hadlaya ama waxa aad ka hadlaysa aad doonaysa inaad ka hadasho ama inaad naqdido ama inaad taageerta aad doonayso inaad fahamsan tahay, qofku inuu fahamsan yahay, inuu qofku akhriyo wixii laga hadlayay issuegii. markaad akhrido, markaad fahamto wuxuu ka kooban yahay, markaad fahamto sababta
waxa weeyaan waxa uu ka hadlayo waxa sababay in doodani timaado waxa uu ka kooban yahay meesha uu ku socdo marka aad fahamto ayaad adiguna taada ku darsanaysaa marka ama sidii waxaad la mid noqon aragtida oo aragtidu waxay cabirayso ayaad ku qanci ama mid ka wanaagsan baad keeni oo si kalaad interpretation iyo recommendation kalaad bixin doontaa laakiin waxa u shardiya markaad wax ka hadlayso waxa inaad dee fahamsan tahay waxa inaad akhrido inaad dhex gasho ayaa muhiim haddaanad akhriin haddaanad wixii fahminba laakiin aad doonto wixii inaad ka hadasho dee waxaad tahay nin gidaar cararaya oo cilmi iyo waxba toona dee aan sidan nin xumbo cuskanaya unbaa tahay nin gidaar ordaya unbaa tahay nin cidla cararaya baa tahay anigoo markaa taa ka duulaya baaq shacab markii aan akhriyey waxa iiga soo baxay waxyaalo badan oo maanta aasaasi u ah loo baahan yahay maanta in waxa weeyaan wax laga qabto oo aasaasi u ah nolosha bulshadeenna aasaasi u ah dowladnimadeenna aasaasi u ah inaynu waxa aynu doonayno inaynu gaadhno ayaa baaq shacab aniga iiga muuqday markii aan akhriyey markii aan eegay markii aan fahmay waxaa ka mid a dalkeenna jamhuuriyadda somalilan waxaynu doonaynaa inaynu dowladnimo helno helaynu doonaynaa dadkeenna waxa weeyaan kusoo hogaaminay 29 sano kusoo hogaaminay dowladnimaduna sharci kama maaranto dowladnimadu waa mas-uuliyadduna sharci kama maaranto marka baaq shacab wuxuu tilmaamayaa ama fariinta uu xambaarsan yahay waxa weeyaan in dowladnimadeenna la qurxiyo oo lagu soo celiyo sharciga waa qodob asaasi ah qodobka labaad ee ku jira waxa weeyaan mujtamaceenna iyo bulshadeenna iyo dowladnimadeenna in waxa weeyaan aynu noqonno culturekeenna ama dhaqankeenna siyaasiga iyo dhaqankeenna dowladnimo uu ku salaysnaado cadaalad iyo sinaan iyo garsoor wanaagsan oo bulshada meesha ku wada nool u garsoora cadaalad u sameeya dhinac kastay tahay iyaduna waxay lafdhabar u tahay cadaaladdu iyo sinaantu waa dowladnimadeenna waxay lafdhabar u tahay wadajirka bulshadeenna inaynu helno bulsho mida oo dowladnimo ka dhaxayso oo dowladnimadooda wada ilaashada waxa keeni karaa waa cadaalad marka waa qodob wanaagsan oo ka turjumaya nolosha bulshadeenna qodobka saddexaad ee ku jira waxaa ka mid ah inaynu kobcinno oo dowladnimadeennu ay kobciso hanaankan aynu qaadanay ee dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan oo siyaasadeennu ay noqoto siyaasad ku salaysan dal iyo dad ka wada dhexeeyaan oo ku ciyaaraya garoon siyaasadeed oo walaaltinimo iyagu leeyahy transfer of power awoodda kula kala wareega si ay ku jirto yacni waxa weeyaan waddaniyad si dimuqraadiya free and fair elections dalkeenna laga qabto dadku ay soo doortaan cidda matalaysa oo dadka rabitaankooda la tixgeliyo doorashooyinka wakhtigooda la ilaaliyo waa qodob isaguna asaasi u ah inaynu qurxinno dowladnimadeenna mar kasta oo dowladnimadeenna aynu qurxinnona waxaynu qurxinaynaa noloshii bulshadeenna marka waa qodob asaasiya isaguna qodobka afraad ee ku jira waxaa ka mid ah ee uu tilmaamayo baaq shacab in la tixgeliyo oo dowladnimadeennu ay tixgeliso xuquuqda muwaadiniinta ee dastuurku damaanad qaaday qof waloo muwaadinaba in la tixgeliyo yacni karaamada shacabkeennu uu leeyahay qof walba karaamadiisa in la tixgeliyo
wixii dastuurku uu siiyey in loo ilaaliyo iyaduna waa qodob ka mid ah qodobada oo xambaarsan yahay dhambaalka baaq shacab. waxaan u arkaa marka inuu yahay qodob aasaasi u ah dhismaha bulshadeennu inay fikirto, inay xor noqoto, qofka muwaadinka ee dhalinyarada ah inuu u fikiro dalkiisa iyo dadkiisa, wixii qaldan inuu si xor u tilmaamo, wixii saxan inuu si xor u tilmaamo, bulshadeennu inay doodi karto, in afkaarta iyo wax weeyaan qof waliba maskaxdiisa si xor u shiili karo, kalsoonida waxa weeyaan dadkeenna in la dhiso ayaa iyaduna yacni ayuu qodobkaasi suuro gelinaya in la respect gareeyo, waxba la ixtiraamo xuquuqda bini aadamka. waa qodob aasaasi ah, wuxuu aasaasi u yahay dhismaha bulshadeenna iyo dowladnimadeenna. waayahay qodobada kale ee ku jira waxaa ka mid ah dalkeenna marka khilaafaad waxa weeyaan iyo waxa weeyaan wixii kala duwanaanshaah ee bulshadeenna dhex mara si cilmiyeysan oo qarannimo ku jirto all kinds of social disputes in loo xalliyo oo aan waxa weeyaan bulshada la kala qaybin, oo bulshada la mideeyo, oo bulshada laysku daro, oo dhan loo wada duubo, oo bulshada laysku tilmaamin ayuu sheegayaa baaq shacab. waxa baaq shacab ka muuqata oo anigu waan u arkaa qiimayn. 29 sano Somaliland jirtay, qiimayntu waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu saxo, lagu horumariyo dadka caadiga ah, xitaa shaqaalaha imika waxa weeyaan adduunka shirkad walba iyo company walba shaqaalihiisa muxuu u sameeyaa maxay qiimayn every 6 months, every 3 months, every 1 year. qiimayn qofkani waxa weeyaan aqoontiisu halkay taagan, waxqabadkiisu waa sidee, muxuu kharibay, muxuu xumeeyey. qiimayntu waxay keentaa in qofkii in wixii wanaagsan la ogaado, bulshadu ogaato, wixii qaldan in la ogaado, bulshadu ogaato, cidda wax qaladay in la ogaado, la abaal mariyo, cidda wax saxday ee wax wanaagsan contribute garaysay in la abaal mariyo. qiimayntu marka oo waxyaalaha keena dee bulshooyinku ay ku horumareen. marka waxaan u arkaa dhambaalka baaq shacab inuu yahay qiimayn. Somaliland wixii u soo qabsamay 29 sano iyo wixii ka qaldamayba inay qiimeeyeen. baaq shacab muu diidin horumarka ama dhalinyarta aragtidooda kama muuqato wax diidma ah dalka iyo ganacsatada iyo dadaalka la soo maray iyo halkii Somaliland ka soo dhaaqday wax yacni ka hor imanaya maaha. markaa waxay sameeyeen qiimayn, waxay soo saareen wixii naga qaldanaa iyo wixii inoo saxsanaa. ujeeddada qiimeyntuna waa maxay? waa retention. wixii kuu saxsan ee 29 sano kuu soo qabsoomay inaad ilaaliso ood gacantaa ku hayso, wixii kaa qaldamayna inaad saxdo si aad higsiga bulshada u xaqiijiso. macnuhu waa intaa. qodobkaana waan ka dhex arkay. sidaas aawadeed waxaan taageerayaa, waxaan hambalyaynayaa oo taageerayaa aragtida baaq shacab. waxaan qirayaa dhammaan qodobada baaq shacab ka kooban yahay inay qaranka ka dhaawacan yihiin, loona baahan yahay in si degdega wax looga qabto si qaranku himiladiisa u gaadho, si bulshadu ay u xaqiijiso horumarka nolosheeda. Somaliland waxaynu u abuurnay oo 29 sannadood shacabkeennu waxa weeyaan u soo noolaa waxa weeye inay noloshooda horumarto. dowladnimada ujeeddada laga leeyahay keliya waa maxay? waa in shacabkeennu dee waxa weeyaan horumar aynu ku gaadhsiino. Soomaaliya waynu iskaga nimid, sababtaynu uga nimidna waxa weeyaan wixii Soomaali weynimo aynu ku weynay waqtigeenu ka midka ahayn inaynu inagu bulshadeenna inagoo Somaliland inaynu u samayno.
haddii kale goonistaagu macno yeelan maayo. Bulshadeennu waxay doonaysaa waxbarasho quality leh, waxay doonaysaa caafimaad quality leh, waxay doonaysaa caafimaad, waxay doonaysaa wadajir, waxay doonaysaa allahumma salli calaa maxamed adduunka inay meel ka galaan. ahdaafta noocaas ay leeyihiin oo dhan waxa xaqiijin karaa waa dowladnimo. dowladnimada xaqiijin kartana waxa aasaasi u ah qodobada uu tilmaamay baaq shacab. sidaas aawadeed waan taageersanahay, waana soo dhaweynayaa. qodobka intaan ku dhaafo, intaa waxaan ku darayaa sidaan u arko dhalinyarada baaq shacab keenay inala wadaagay. marka hore waan hambaleynayaa oo muwaadiniin reer Somaliland waxaan ku dhiirigelinayaa doodaha noocaas oo kala ah inay sii wadaan, inay banaanka u soo saaraan iyagoo talafaysa maqal iyo muuqaalba iyagoo ah inay bulshada la wadaagaan dhammaan issueska ama arrimaha bulshadeena ka qaldan oo dhan inay tooshka ku ifiyaan oo bulshada ay hor keenaan ayaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa. waxaan u arkaa dhalinyaro madax bannaan, waxaan u arkaa dhalinyaro muwaadiniina dalkooda iyo dadkooda la jeclo kale baan u arkaa, waanan bogaadinayaa. waxaan u arkaa dhalinyaro sida fikir ama aragti nool waxna nooleynaysa ayaan u arkaa. waxaa la yidhahdaa aragtida ama fikirka waxa loo qaybiyaa laba. waxa la waa aragti nool waxna noolaysa. waxaa kaloo jirta baa la yidhahdaa aragti ama fikir dhinsan ama fikir yacni waxa weeyaan dhinsan dadkana dila. fikir dilan dadkana dila. aragtida waxaa la yidhi nooli waxay ka timaadaa dad nool bay ka timaadaa. waa aragti nool waxay ka timaadaa dad nool, dadkana way noolaysaa. aragtida dhinsani waa aragti daalan, waa aragti ka timid dad daalan, waa aragti iyadu daalan dadkana daalisa. marka waxaan leeyahay anigoo kaa ku salaynaya dhalinyartaa fikirkoodu waa fikir wax ku oola insha allah. aad iyo aadna waan u hambaleynayaa. qodobka kale ee dhalinyarta kale ee ama waxaan arkayay dad fara badan oo aragtidaasi markay soo baxday ama fikirkaasi markuu soo baxay meelo aan meeshiiba ahayn la aaday, si qaldan oo ay ka muuqato aqoon darro oo ay ka muuqato faham la-aani aragtidaa u cabiray ama dooddaa uga qayb galay. tusaale ragga yacni dooddaa ku naqdiyaya Somaliland waxay ka timi 29 iyo 91 iyo 93 soo sawiray iskuullada iyo daasadaha lagu fadhiisan jiray. waxaan leeyahay aragtidaasi waa aragti daalan, waa aragti dadka daalinaysa, waa aragtidii uun waa tii mujtamaca daalinaysay uun aynu dee markhaatiga ka ahay inay soo socotay un weeyaan. waxay ila tahay dadkii Somaliland daasadaha wax ku soo bartay ee iskuullada bilaa saqafka wax ku soo bartay ee roobku ku heli jiray anaa ka mid ahaa. dadkan Somaliland jooga oo warramaysan Brazil iyo Russia kama iman. dadku waa dadkii soo joogay sooyaalka taariikheed Somaliland taariikhdeeda ogaa. qof waliba wuu ogsoon yahay 92 94 daydegii meel walba miinadii ku jirtay qaraxii ma garanaysa cid waliba way ogsoontay. iskuuladii wax lagu soo bartay xaaladii dalku uu soo maray qof waliba wuu ogsoon. waa taariikh dalku leeyahay. markaynu dowladnimadeena qiimeynayno ama caalamku sida uu isu qiimeeyaa yacni base uma noqonayso 91 halkaynu taagnayn. 91 waa yahay dagaalaa jiray, daydi baa meel walba joogay, dalku wuu dunsanaa. maanta halkanaynu maraynaa bas dabeetana waan seexanaynaa.
وقياس runtii aad u qaldan waa qiyaasan fahmin habka ummaduhu iyo bulshooyinku isu qiimeeyaan maanta markaynu dalkeena qiimeynayno ee siyaasadeena qiimeynayno waxaynu ku qiimeynaynaa standardka caalamka waxaynu ku qiimeynaynaa waxaynu doonayno intaynu u jirro maxaa inaga dhiman maxaa inoo qabsoomay maxaa weli inaga qaldan ayaynu ku qiimeynaynaa adduunka maanta dowladuhu waxay isku qiimeeyaan dowlad heblaayo security-ga amniga halkay kaga jirtaa xuquuqda bini'aadamka halkay kaga jirtaa dimuqraadiyadda halkay kaga jirtaa dhaqaalaha halkay kaga jirtaa midnimada iyo wadajirka halkay kaga jirtaa intee in leeg bay degan tahay intee in leeg bay khatar ugu jirtaa inay dunto habkaasaa adduunka maanta casrigaa la isu qiimeeyaa waxaynu u baahanay marka inaynu fahamno qiimeyntan 92 iyo 93 iyo 90gii inaynu galnaa waa aragti aan cilmi ku dhisnayn baan u arkaa waa aragti daalan baan u arkaa ama waa aragti isyeelyeelaysa oo dana shakhsiga ilaashanaysa baan u arkaa oo danta dalka iyo dadka midnaba aan tixgelinahayn ayaan u arkaa aragtiyahana waxaan leeyahay oon ku soo gabagabaynayaa baaq shacab dhammaan intii taageertay waan hambalyeynayaa waxaan u arkaa inay maanta fursad tahay xadaarad iyo ilbaxnimaynu waxaynu joognaa 2020 baynu joognaa waxaynu u baahannahay inaynu dowladnimadeenna iyo wax kasta oo bulshadeenna ka qaldanba inaynu saxno aqoon ku saxno caqli ku saxno iska ilowno masaalixda shakhsiga iyo waxyaalaha waxa weeyaan gaarka inaynu iska ilowno ayaynu u baahannahay moralka dadkeenna inaynu dhisno dadkii waxa weeyaan waddankeennii ka hirgalay siyaasad dishay dadkeeda moralkii dhallinyarada dishay ninbaa xafiis fadhiya meel buu ka yar shaqeeya shaqadiisii uunbuu ilaashanayaa taasuu waxna ku taageeraya waxna ku diidaya aragti kale iyo fikir kale midna male macnaha siyaasadda taalla siyaasaddu haddaanay moralka bulshada iyo dhallinyarada aanay dhisin dadku waxay noqonayaan wada guulwade dadku waxay noqonayaan inay siyaasaddii iyo masaalixdii shakhsiga ha laysku sooho laysku daro dabeetana moralkaa ka dhimanaya qofkii siyaasaddii dalku yacni waxa weeyaan higsi male bulshadii iyo dhallinyartii meel u tilmaami mayso siyaasad muuqata oo halkay dalka waa siyaasadun ku mashquulsan kala qaybinteeda iyo iyaga isku tilmaamintooda iyo isku horgeyntooda marka qiyamkii siyaasadda inaga dhintay siyaasad ku dhisan been siyaasad ku dhisan majara habaabin siyaasad akhlaaqiyaadkii loo baahnaa waayo dal muslina baynu nahay waxaa loo baahnaa siyaasadeennu inay ku dhisnaato diinta siyaasad inay noqoto siyaasad qofka siyaasiga ee siyaasadda ku jira wax ka celinaysa beenta u diidaysa majara habaabinta u diidaysa oo ka celinaysa bulshadiisa waxa weeyaan ka xishoodsiinaysa bulshadiisa inuu kala qaybiyo yacni akhlaaqiyaadkii siyaasaddii aynu u baahnayn bayskeedu inuu ahaa diinteenna wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu corruptionka iska ilaaliya walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil yacni aayaadka siyaasaddii aynu u baahnayn inay yeelato qiyam islaamiya oo dhan baa dalkeenna ka dhimatay marka waxaad arkaysaa nin yaroo waxa weeyaan ama doodaha rasmiga ee dadka aqoonta leh ay keenayaan ee dalka iyo dadkaba maslaxadooda ku jirto cagaa qabanaya meel kale u jihaynaya xamar ula cararaya meel kalea laga soo agaasimay isagoon wixiiba fahmin ayaad arkaysa because waa maxay waxaasoo dhami waa akhlaaqiyaadkii waa siyaasaddii qaranka ayaan ahayn siyaasad falsafad leh oo waxa weeyaan dadkeenna wax u tilmaamaysa oo qofka dhiiri gelinaysa oo qofka dhisaysa oo qofka run ku tababaraysa oo qofka siyaasad wanaagsan ku tababaraysa ayaanay siyaasad ahayn waa siyaasad ku tababaraysa maxay been majara habaabin kala qaybin xin xaasad beloo dhan
marka falsafada waddankeennii taalaa taasa marka waxaynu u baahanay dhalinyartu inay fahmaan maanta dalkan innaga iskale jiilka u soo baxaya waa innaga cid kale u iman mayso quruxda waddankeennuna waxay ku xidhan tahay hadba quruxda innagu aynu yeelanno iyo siyaasadda aynu qaadanno haddaynu nahay dhalinyarta ayaa qarankeenna quruxdiisu ku xidhantahy nolosha bulshadeennu ku xidhantahy intaynu iska dhaafno markaa masaalixda shakhsigaa waxaynu u baahan nahay inaynu taa fahamno arrimaha masiirigaa iyo arrimaha nolosha bulshadeenna wax ka tarayana inaynu taageerno dadka aqoonta leh ee garashada leh inaynu taageerno wixii wanaagsan ee maslaxaddeenna iyo maslaxadda ummaddeenna u adeeg inaynu taageerno garab istaagno ayaynu u baahan nahay intaasaan kusoo koobayaa ciid wanaagsan baan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu